بسم الله الرحمن الرحيم qofku maalinkii waxa uu qaataa 15 kun oo go'aan ilaa iyo 35 kun oo go'aan inta u dhaxaysa ama ha waaweynaadaan go'aanada uu qaadanayo ama ha ahaadaan kuwo yaryar kuwo consciously uu qaadanayo ha ahaadaan iyo kuwo si unconsciously uu qaadanayaba taa macnaheedu waxa weeye qofku inta uu nool yahay wuxuu qaadanayaa in ka badan intaasoo trillion oo go'aamada uu qaadanayo waxa igula waaweyn 3 go'aan inta aan isleeyahay go'aanka ugu weyn ee qofka uu u baahan yahay inuu ka fikiro ayaa wuxuu yahay inuu sii ahaanayo qof muslina oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ومالنت قيام رالي كنقضو طبعا dad muslimiin ayaynu nahay inagu maynan dooran Ilaahay subxaanahu wa ta'ala galadiisa iyo wanaagiisa ayuu inagu siiyay laakiin inaynu sii ahaano dad muslimiina oo u baahan qofku inuu la noolaado inta uu nool yahay go'aanka labaad ee ugu adag aan isleeyahay wuu ugu adeeg yahay nolosha waxa weeye qofku wixii uu noqon lahaa inta uu nool yahay qiyamtii uu la noolaan lahaa mabaadi'dii uu la noolaan lahaa hiraalkii nolosha uu ka yeelan lahaa dhaxalkii nolosha uu kaga tegi lahaa wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala biri ka maalin uu la hortagi lahaa ay u odhan lahaa Ilaahayow dunidii aad igu abuurtay intaas ayaan ka soo qabtay intaasana maanta kula horjooga inaad iigu naxariisato jannooyinkaagana aad iigu geliso waa go'aan aad u adag go'aanka saddexaad ee isleeyahay labada horeba saameyn ayuu ku leeyahay waxa weeye qofku cidda uu nolosha la wadaagayo qofku cidda uu nolosha la wadaagayo waa go'aamada ugu adag ee nolosha qofkana soo wajahaya inta uu nool yahay maadaama qofku cidda uu nolosha la wadaagayo ay tahay go'aamada ugu adag ee qofku uu qaadanayo inta uu nool yahay waxaan jeclahay inaan idinla wadaago 5 qodob oo aan isleeyahay qofku wuxuu u baahan yahay inuu isweydiiyo oo wax ka ogaado intaanu guursan ka hor 5 qodob qodobka ugu horeeya waxa weeye naftaada baro qofku ma garan karo cidda ku haboon iyo cidda uu doonayo ilaa uu ogaado qofku isagu yahay waxaan uga jeedaa marka hore baro oo iska dhex ogow waxa aad jeceshahay iyo waxa aad neceb tahay qiyamta adiga agtaada ku weyn iyo waxa aan agtaada ku weynayn hiraalka aad nolosha ka leedahay iyo hadafkaaga nololeed waayo hadhow waxa laga yaabaa inuu caqabad ku noqdo qofka aad nolosha la wadaagayso waxa aad jeclayd ee aad hiigsanaysay ee aad ku fakaraysay arinta kale iyadana u baahan inuu qofku ogaado waxa weeye dabeecadiisa dhalinyaradu inta badan waxay yiraahdaan anigu waxaan rabaa qof aan isbuuxino qofka aan isbuuxinaysaan micnaheedu ma aha inuu wax walba kaaga ekaado inuu dhinac walba ka shabaho ma aha meelaha qaar waa inaad isaga mid noqotaan oo dabeecadda ka mid tahay laakiin qaybo kale oo ka mid ah dabeecadda lafteeda waa inaad ku kala duwan tihiin waayo haddaad isaga mid ka noqotaan mushkilad ayaa idinla soo darsaysa maxaa ka mid ah adigoo kulul oo isagina tahay qof kulul haddii aad guursato qof kale oo kulul noloshiina way adkaanaysaa adigoo dulqaad yar oo isagina dulqaad yar tahay haddii aad guursato qof kale oo dulqaad yar way adkaanaysaa noloshiina guurku وهكذا waxaa jira waxyaabo muhiima
inaad isaga mid ka noqotaan adduun aragga inaad isaga mid ka noqotaan waa sababta aan kuu leeyahayba isbaro oo marka hore ogow halka aad u socoto waxa aad damacsan tahay waxa aad hiigsanayso waxa doonayso nolosha inaad qabato waayo marka aad intaa ogaato waxaad raadsanaysaa oo aad noloshaada ku soo biirinaysaa cid intaaba kula wadaagta ama cid aan liddi kugu noqonaynin oo halka aad u socoto kugu saacidaysa qodobka labaadan raba inaan idinla wadaago waxa weeye nolosha guurku waa mas'uuliyad iyo raaxo isla socda ma aha raaxo oo keliya mana aha mas'uuliyad oo keliya mas'uuliyadduna waxay u baahan tahay in la wadaago qodobka saddexaad ee tahay qofku inuu ogaado waxa weeye nolosha guurku ma aha tanfilimada oo kale uma qurux badna sida sawir mar la soo dhigay facebooka oo qurux badan ay ka muuqato oo kale bale waa nolol dhibaatooyinkeeda leh Soomaaliduna waxay tidhaahdaa geed waliba in gubtaa hoos taala waxaan taa uga jeedaa ma qurux badna qofku inuu nolosha reerkiisa ama qoyskiisa uu barbar dhigo qoys kale qoys waliba wuxuu leeyahay wax uu ku wanaagsan yahay waxa jira wax qoyskiina ka maqan oo qoys kala haysto waxa kaloo jira wax idinku aad haysataan qoysasku kalena ay jeclaan lahaayeen inay haystaan sida daraadeed ha barbar dhigin nolosha qoyskaaga nolol qoys kale qodobka afaraad aan isleeyahay waa muhiim waxa weeye labada qof ay isqaba labada qoys ay ka soo kala jeedaan waxay ka mid yihiin qoyskan dhismay taa micnaheedu waxa weeye wiilku inuu ogaado gabadha uu soo guursaday in qoyskeedana uu la guursaday gabadhuna ay ogaato in wiilkan ay isguursadeen qoyskiisana uu ka mid yahay qoyskan dhismaya xitaa labada qof haddaanay midba midka kale qoysaskooda aanay xidhiidh toos la lahayn waxaa habboon oon isleeyahay inuu ogaado baahiyahooda waa inaad ogaato haddii ay timaado dani ku timaado qoyska inaad dan gabadha ka hor istaagin inay caawiso reerka sidoo kale gabadhu hadday ogaato in wiilka qoyskiisa ay dani ku timi iyaduna inaanay ka hor istaagin bale la iskaashado oo si wada jira dantaa loo fuliyo qodobka shanaad aan isleeyahay muhiimadiisu leeyahay haddaanu kuwa kaleba ka muhiimsanayn waxa weeye guurku wuxuu u baahan yahay aqoon waxaad u baahan tahay inaad garaadsato inta aanad guursan guurku waa shaqo nolosha guurku waa shaqo bale waxaan odhan karaa waa shaqada ugu adag nolosha waxaa laga yaabaa madaxweynaha Mareykanka talinaya in hadday ugu badato uu 8 sano haynayo xilka 8 sano waxay ku qaadataba xilli baa jirta uu dhaafayo laakiin nolosha guurku ma dhamaato waxaad u baahan tahay inaad wax ka ogaato waxna ka akhriso kala duwanaanta labada qof gabadha iyo wiilku waxa jira waxyaabo fara badan ay ku kala duwan yihiin hab fikirka iyo sida ay wax u arkaan bay ku kala duwan yihiin filashooyinka ay ku kala duwan yihiin qaabka ay u xaliyaan bay ku kala duwan yihiin inaad wax ka ogaato sidoo kale inaad wax ka ogaato cilaaqaadka wanaagsan sida loo dhiso waa tiirka ugu adag guurka waa sidoo kale waa tiirka ugu adag barbaarinta cilaaqaadka iyo wada xidhiidhka wax ka ogow sidoo kale habka mushkilaadka hadday mushkilo idinku timaado oo arrin idin dhex marta adiga iyo qoyskaaga sidaad u xalin lahayd arrinta kale u baahan inaad wax ka ogaato waxa weeye waxna ka akhriso seminaarana ka qaadato sida loo barbaariyo ubadku waa hawl waxay u baahan yihiin in lagu barbaariyo casri ka duwan casriga adigoo aad noolayd si ka duwan sidii adiga lagu soo barbaariyay waana hawl aad u adag waxaan isleeyahay shanta qodob qofku hadduu wax ka ogaado qodobkii ugu dambeeyay shanaadna uu la noolaado oo ah inuu qofku mar walba kororsado waxna ka ogaado nolosha guurka inuu guurkiisu barakoobayo waxaan idin wada rajaynayaa nolol wanaagsan aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu